halkani waa magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxay la circiraysaa kor u kaca tirada dadka badan ee ku nool iyo saxmadda isku socodka gaadiidka magaalada gudaheeda isaga goosha kasakowinay sidaasi ahayd sanadihii ugu dambeeyay waxa xilligani oo kale ku soo xagaabaxa dadka ka yimaada dalka Jamhuuriyadda Djibouti iyo magaalooyinka xeebaha ah ee gobolka Awdal balse bilihii ugu dambeeyay waxa soo ifbaxday mushkilad bulshada inteeda badani ay cabasho ka muujinayaan waxa ku sugan boqolaal barakacyaal ah oo ka soo haajiray dalkaas Ethiopia qoomiyadda Oromada oo hore u iman jirtay waxa haatan ka tiro badan xabashida ka soo hayaantay gobolka Amxaarada ee dalkaasi waxay hoy bideen oo ay hadda ku nool yihiin jidadka dhinacyadooda iyo gidaarada hoostooda qaarkoodna waxaabay ku dhex maydhanayaan roobabka waqti xaadirkani ka da'aya magaalada gudaheeda qaybaha bulshada magaalada Boorama oo ay kamid yihiin culimada dhalinyarada iyo haweenka u dambeeyay waxa ay ka cabanayaan xaalado dhaqan xumo oo la sheegay in lagu arkay dadkani iyo halis caafimaad darro oo ka dhalan karta hab nololeedkooda marka aad u fiirsato dadkani waxa ay banaanka ugu nool yihiin sida ay bulshada guriga ugu nooshahay oo kale waxaanay raashinka ku cunaan gidaarada ay dharka ku maydhanayaan waxaanay harsadaan kulaylka qorraxda iyo qabowga dhaxanta habeenkii dhacda dhaqankii islaamka ay bedeleen mideeda kale laba gidaarkana la isku wada qabaa annagu waxaan fahmi weyno diinteenu qaadan kara samaysada u dhaqsaa badan la wax nooga qabo gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha Somaliland oo isagu hore u yimid magaalada Boorama ayaa waxa uu ka howlgalay guriyo loo sameeyo dadka hore u deganaa magaalada ee loo yaqaan dadka dalka gudihiisa ku barakacay balse waxa uu si buuxda indhaha uga laabtay xaaladda dadka xabashida ah ee ku soo qulqulaya magaalada Boorama isagoo ka gaabsaday inuu ka jawaabo su'aalo la xiriira arrintaasi oo ay warbaahintu wax ka weydiisay halkan uma nimo su'aalo shir jaraad ma noqonay waxaan meel baan dhagax dhigaynaa markaas ka raali lahaada marka aad iyo aad buu maasantii weli ma jirto dawlad wax ka qabatay ama wax u qabatay dadkani mana jirto xukuumad ka jawaabtay baaqyadii bulshada ka soo yeedhay balse digniin dhowaan ka soo baxday taliska ciidanka laanta socdaalka Somaliland ayaa lagu sheegay in muddo 20 maalmood ah loo qabtay in dadka ajaanibka ahi ay kaga baxaan dalka balse dadka xabashida ah ee ku nool magaalada Boorama waxba kama oga arrintaasi warna uma hayaan wararka la isu mariyo warbaahinta waxay soo muuqataa in ay qabto si lama filaan ah ugu dul dhici doonto haddii la fuliyo amarka ka soo baxay laanta ciidanka socdaalka Somaliland gidaar walba way jeefaan awlaadda iyo kii aqliga xun leh iyo kii xanuunsanayayba ilaahay mayna ka cabsanaynin xanuun iyo cudur ayaan u nahay qarka dawladda sharafta la waxaan ka codsanaynaa inay naga qabtaan Ibrahim Suxufi Bulsha TV Boorama